Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelkayga Yusra Media. Waxaan iraahna haddaan Soomaali nahay ka daro dibidal iyo isma oga Islaamka bala. Waxaan ku keenay walaalahayga Soomaaliyeed. Ayaan dhaweeyta waxa baraha bulshada isqabsaday nin qoran 66 tam u tahay maalna haysta. kaasoo soo bandhigay arin xal uu u arkay inay ummadda Soomaaliyeed u tahay jeclaystana inuu la wadaago kaasoo soo bandhigay baraha bulshada afartii saxaas midba nooc kala ah bilicdoodana ay nuurayso farxadoodana aan la qiyaasi karin maxayse kugu taal walaalkayga Soomaaliyeed ama walaashayda Soomaaliyeed Islaan maseersan ayuu tadii la qaraaraatay iyo oday calool buuran oo ay ka taal oo aan laba tilaabo hore u qaadi karin afka labadiisaba yeereen haddaan nahay Soomaali caadadeenno ma ahan ceebteenna runtana waa midda aan garta uga cagajiidno Allah subhanahu wa ta'ala waan ognahay inuu marxaladooyin walaalahayga qaaliga ah qaas ah uga jeediyay xaasaska badan ama guurka badan midda meesha taalase ah haddii aad marxaladahaas awgeeda guurka u badiso inay kuwa jecel xaqiiqada inay duugaan afka labadiisaba yeeraan sidaan hadda aragnaba hablihii isla guursaday ee Soomaaliyeed ee hooyooyinka wacan ahaa maasha Allah oo duruufta nololeed ay xal adduunyo u geysatay meherkii xalaasha iyo guurkii wacnaa Ilaahay uga samata bixiyay nimcadooda way la wadaageen ummadooda Soomaaliyeed uma aysan qarin siday kuwa arin jahwareersan tahay xal ugu helaan oo stresska qaasatan jahwareeriyay xaqiiqda jirta ah walaalahayga Soomaaliyeed inay qowmiyadeena intayna badan ka diidno haddii sir la fashiliyo kuwaasoo gurbaanka loo tumo u tumaan kuwa xaqiiqda qariya ee ceeb la tahay ninkan Soomaaliyeedse hadduu nafafkan walaalihiisa maareeyay asagana abaarta uga baxay caaqibada iska dugaarsadeen ceeb ma laha waxayse dhaantaa run ahaantii inanta doolarka ku beecsanaysa jismiyadeeda ayadoo diinteeda suuban xambaarsan dambiyada allana ka galaysa doola cadeynaysana wanaagna waa aragta midda jahwareersan ee xaaladda adduunyo jahwareerisay caaqibada Ilaahayna ku soo haleeshay taasoo ku nafweysana subhanahu wa ta'ala ayadoo ay xalaasha gacanta kula jirin waxay u ceeb door u tahay ama u ceeb dooraysaa arintan kan hadba gidaarka isku malaaqaya alana ka fogaaday dambigana foosha kula jira qoyskiisana ceebta dunida itan aakhirada u soo jiidaya waxaan leenahay walaalahayga qaaliya kan hilibka qaaday caafimaadka la tacaalaya halgankana kula jira inuu san wax maareyn karinna ay caddahay halkii agaxaas ku ekow Ilaahay ku nimceeyana tan quudkeeda la tacaalaysa dambigana foosha xun kula ku kufaysa gidaarada hunguriga soo jiida awgeedana qaladaadka uga galaysa nafteeda halaagaysana toobadkeeno stresska iska dhaqo salkaaga intuusan xaaraan kula bararin xalaasha doono waxay u aragnaa intayna badan marxaladaha la soo wajaha oo mana haysta hadana qowmiyadeena Soomaaliyeed
oo marxalada rasmiya ay tahay walaalahayga qaaliga oo xaqiiqa burburkii kadibna na haleeshay inay tahay marxalada wacan waxaan maanta qasanayna xaqiiqdana way ka fogaataa inteena badan ma ahan wax diinta fartay dhaqankeena suubanay Soomaaliyeedna ku jira taasoo xaqiiq ay tahay gabar aan waajibaadkeeda gudan karin baan aragnay iyo wiil xaaladiisa qarso noqotay gabowgii oo nagu soo degdegay iyo wax la yiraahdo haddaan dhibarahay waan isla xanuunsanaynaa haddii kalena kabtanka daba qaadan waxaa habboon inaanan haddaan tabicin wanaageena oo waajibaadkeena aan ka dhiindhiidin inaa inteena xalka la timaada aanan ambaareenin oo aan u sababin ceebo aanan u sacabtumin gurbaankana ka daba qaadanin horaa loo yiri ninkaa war badan dhaxalka aabbahaana waa kaa dhaxlaayo meel bacaad cillow kaaga soo tagaa afjoogase looma adeego hooyo walba waxa ayadii awlaadeeda u runayda ka taqaana ee foodada ha laga dhaafo dadkeena Soomaaliyeed ee xalaasha qoodanaya nolosha kuwa la leexayana waxaan leenahay noloshiina la tacaala laakiin Ilaahay u toobad keeno hambalya ayaan leenahay hooyooyinka Soomaaliyeed ala duruufta ka qaaday xalaashana dugaalsade guurka nimcaysanna kan fadaxsanaya nimcaysta ayaan leenahay aabayaasha Soomaali cadaadkii kadeedka ku jiray ka nafis qaatay xorinimada in nolosha macaankeeda dunidana dhadhamiyay dhammaantiina walaalahayga Soomaaliyeed ee igu qaaliga ah Soomaalinimada iyo diinta suubanna ay ku weyn tahay waxaan iga tagayaa salaanta ugu qiimaha iyo qaayaha badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isku soo laabasho wacan oo wanaagsan dhammaantiina